Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada caafimaad media ee aad run ahaantii ugu barateen inay idiin soo gudbiyaan arrimaha caafimaadka. Waxaan rabaa awalan inaan ku bilaabo tacsidaas oo aan u dirayo dhammaan ummadda muslimka ah khaasatan Soomaaliyeed intii uu geeriyootay la ajli cudurka hadda socda ee corona. waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto, qabrigooda ha u waasiciyo, jannadana ha ka waraabiyo. in alle intii isbitaalaadka ku jiro oo u dhaxeeyo nolol iyo geerina waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala shifaa degdeg ah ha siiyo. saa ula socotaanba cudurkan run ahaantii waxaa u moodaa inaan aad u dhayalsanay aadna u yaraysanay. taasaa keenaysa marka inaan rabno inaan kusoo celcelino oo aan tikraarno cudurkan wuxuu yahay. haddaan ka bilaawno cudurkan corona mise COVID-19 coronavirus disease 2019 wuxuu ka bilowday dalka China, khaasatan magaalada Wuhan ee gobolka Hubei. waxaana la yiraahdaa inuu ka bilowday suuqa xoolo duureedka ee magaaladaasi Wuhan ee weliba asalkeeda u ahaada la leeyahay xayawaanka ama bahalka loo yaqaano kibiley. cudurka awalan aad buu wuxuu ugu faafay dalka China, laakiin haddadan wuxuu ku faafay adduunka idil. waxaana loo bixiyay inuu cudurkan yahay global pandemic, yacni cudur adduunka idil ku faafay meel kastana gaara. ilaa waqtul xaadir cudurkan wuxuu marayaa ilaa 180 dal ee adduunka ku taal. haddii la fiiriyo marka statisticskeeda oo markastaba xisaabteeda socoto si daqiiqad ah, waqtul xaadir cudurkan wuxuu saameeyey oona ku dhacay ku dhawaad 1 milyan oo qof, wuxuuna weliba geeri u sababay ku dhawaad 50,000 oo qof. haddaan nahay Soomaalina, weliba khaasatan Soomaalida degta dalka Sweden, waxaa moodaa in si gooni ah annaga aan ugu soo baxno tiro ahaan. marka waxaa muhiim ah walaalayaal inaan la soconno cudurkan inuu yahay cudur halis ah, cudur faafid badan, cudur dilaa ah. sidee marka lagu gartaa cudurkan waxaa lagu gartaa walaalayaal inuu yahay horta cudur calaamaadka hergebka wata, sida duufka, sida cuna xanuunka, sida qufaca. qaar baa waxay sheegtaan in dhadhanka uu ka tago ama maxaa la carafta ay ka tagto, qaar bay caloosha socotaa. laakiin waxa uu darano badanaa qofka uu dareemo qofka markay xaalad halis ay gaadho waa inuu naqaska qofka ku dhagaa. calaamaadkaas waa calaamaadka lagu yaqaano coronavirus. haddii marka calaamaadka isku aragtid laakiin aadan gaarin heer halis ah, waxaa la rabaa marka qofka biniaadanka ah weliba muslimka inuu mas-uuliyadiisa qaato oo gurigiisa ku nagaado, uusan qofka walaalkii ah uusan cudurkan gaarsiinin. waxaa kaloo muhiim ah inaan aada ugu taxadirno dadkeena waayeelada ah, aabayaasheen iyo hooyayaasheen, ayeeyaasheen, kulli dhammaan in aan ka taxadirno oo aan cudurkaanan u geynin, sababtoo iyaga u nugul. waxaa kaloo u nugul dadka cudurada difaaca jirka hoos u dhiga haysta. waxaa kaloo u nugul dadka wadnaha ka xanuunsan, samabaha ka xanuunsan oo kale u nugul. dadkaasoo dhan waxaa la rabaa walaalayaal inaan run ahaantii si fiican ugu taxadirno oo aan u ilaalino. meel gooni haddaan dejin karna aan dejinno, qofkii adeeg u geyn karna oo u geeyo iyadoo gurigiisa loogu tagaynin. lacalla hadday geeri dhacdo inaan guriga tacsi qofka loogu tagaynin. haddii la yiraahdo duugaa dhacdo mise janaasaha jirto, in la ilaaliyo shuruudaha cusub iyo sharci cusub wadanka kasoo baxay ee Sweden oo ah in 49 qof ka badan meel isku imaan karin. in haddii xitaa la isku yimaadeen la kala fogaado, aan gacanta la iska salaamin. qofka hadduu xanuunsan yahayna ooba ka waantoobosan imaanin janaasada. hadda xilli geeriyaa lagu jiraa, xilli xaflad iyo aroos iyo laguma jiro. marka qof alla qofkii xilligaas rabo inuu dhigto waxaan kula talinaynaa inay dib u dhigtaan. walaalayaal qaabka looga hortago awalan cudurkan horena waa usoo sharaxnay, haddana waxaa muhiim ah inaan idinku celino. cudurkan waxaa looga hortagi karaa run ahaantii waa in nadaafadda lagu dadaalo, gacmaha la maydho, weliba khaasatan cidiyaha iyo faraha dhexdooda iyo dushooda iyo calaacasha. waxaa kaloo muhiim ah qofka markuu qufacayo in uusan toos u quficin oo garabkiisa ku qufaco, ama haddii mandiil ama warqad haystana warqadaas ku qufaco ama ku hindiso. markuu isticmaal kadibna oo qashinka ku daro.
waxaa kaloo laga rabaa qofka haddii uu meelaha gooni u taabto inuu iska ilaaliyo inuu wejigiisa gaarsiiyo, khaasatan indhaha, sanka iyo afka. walaalayaal hadda waxaa lagu jiraa xilligii gacmaha la isqabsan lahaa, xilligii la wada shaqayn lahaa, ummadeennana wacyigelin iyo taageero dheeri ah la siin lahaa.